بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال لنا ولا waxaa ka warqabteen guddigii dhexdhexaadinta ee saddexda xisbi iyo madaxweynaha go'aamayna soo saareen 16 bishii 12aad go'aankaana sidaa ka warqabteen saddexda xisbiba way aqbaleen labada xisbi waxay aqbaleen gogashii madaxweynuhu u fidiyey waxaana isugu yimaadeen kulankaa koowaad madaxweynaha iyo labada guddoomiye ay isla qaateen waxaa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood waxaanu ka wada hadalnay sidii loo fulin lahaa saddexdii qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ahaa kala dirista komishanka hadda jooga soo celinta komishankii hore iyo muddaynta xilliga doorashada oon ka dambayn 2020 maalintaa koowaad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore waxaanu u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009 ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay sacsilaan 48 saacadood kadib waanu soo nimi madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awgooda carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawshaa kala dirista loo soo dhammeeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas maanta waxaan isugu nimi kulankii saddexaad oo bishu 13 January madaxtooyada waxaa kulanka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaanu ka filaynay the progress report iyo wixii u qabsoomay waxaana gunaanadkiisa noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu yahay inayaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay uga qabsoonto doorashooyin waqtiga ugu degdeg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga Somaliland inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan wax kale oo ugu dambayn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii aan la yidhaahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدهم يهان سؤال هدي أي دعي ويدا كلنا no commission no questions حبنا ولا هنا no خبر تتبع قولي لا 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 Hey!
ولكن بدك وساري سيدي أنا دخل له أنا من دون هذا فطور من جدا قصة عن الشركات والماضي waxaan ka dhamaaday shirki jirayd labada xisbi ee guddoomiyaasha wadaniga ay qabteen ay ku sheegeen in maanta ku shamay kulankii la yeeshay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi baaqi ka soo saareen oo saxaafadda ka daawan doontaan markay ku soo gabagaboobay waa saxaafadda mas'uulka ka soo baxay halkan imika waxaa ku soo idlaabay in kulan warbaahineed ay qabteen labada guddoomiye xusbi mucaarad ee xusbiga wadani guddoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale guddoomiye Faysal Cali Waraabe waxay warbaahinta u sheegeen in guud ahaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ay shir wada qaateen uu ka diiday in waxa weeyaan guddigii doorashooyinka la kala diro islamarkaasna iyagu waxay mar kale ay codsadeen oo guddida ay ka codsadeen in ay guddidaas iyagu is casilaan maadaama madaxweynuhu uu awood u waayay bay yidhaahdeen waa sida hadalka u dhigeen inuu kala diro mar kale beesha caalamka iyo waxa weeyaan bahweynta ka taageerta arrimaha doorashooyinka Soomaaliland waxa ay ugu baaqeen in waxa weeyaan arrinta ay soo farageliyaan waxay noqonaysaa kulankii saddexaad ama afraad ay wada qaataan xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland inta hawshan ay tahay oo gaaraysa muddo 15 bilood madaxa la sii gelaysa ilaa ay imika lama hayo wax natiijo ah oo arrinta ka soo cusbaanaan doona labana se garan karo waxa weeyaan arrinta ku dabay doonto يا بتاعتك السيارة